kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad dunida ka joogtaanba waa barnaamij gaara oo daba socda kulankii qarsoodiga ahaa ee ka dhacay Caynabo. haddaba waxaa maanta khadka telefoonka ku jira haliyey reer Khaatuma isaga ayaa isu kiin sheegi doona balse waxaa ku soo dhaweynaya waraysiga ku soo dhawow. Ismaaciil adiga iyo After Production iyo website-ka Ruucadaada waan idin salaamaya waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam waxaan kaloo rabaa inaan salaamo dhegeystayaasha sharafta badan leh ku xidhan barnaamijka ee ku kala dhaqan daafaha dunida haddii ay beedmaayo reer Khaatuma ah waliba khaatumada xabaasha ah ama aan idhaahdo reer Sool Sanaag iyo Caynta dhabta ah ee aan ahayn dadka keliya soo buusiyey waa salaamayaa. magacaygu waa Maxamed Maxamuud Guutaale waxaan deganahay waddanka Maraykanka wadada waxaan deganaan jiray waddanka Kenya dadku boqolkiiba aan isleeyahay 85 maqal iyo muuqaal labadaba way igu garanayaan aqoontayda waa saas weeye. waayahay ku soo dhawow mar kale waxaan jeclaa inaan wax kaa weydiiyo siyaasadahan hadba isbedbedelaya ee ku gadaaman maamul goboleedka Khaatuma State of Somalia. Guutaale ma kula muuqataa hadafkii iyo ujeedadii laga lahaa Khaatumo in laga baydhay? Ismaaciil waxaan ka wareegayay ilaa ay bilaabantay maxkamadii soo baxday wadahadalka Somaliland iyo Khaatumo kadibna Caynabo laga wasiir loo diray oo haddii beedmaayo ay niman kale isa soo arkeen muddo ayaan anigu ka wareegayay dad badanina su-aalo iga weydiiyeen wax kalena anigu ma aanan lahayna waxaan lahaa yaan lagu degdegin wadahadalku waa mid siyaasadeed wejiyo badan buu yeelan karaa shuruudo badan baa jiray oo wadahadalkaa ku xidhnaa marka laga soo tago shuruudihii way jabeen oo waxay ahayd in ay Somaliland deegaanadaas Khaatumo ku isman ay ka joojiso dhaqdhaqaaqa sida dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo ka diiwaangelinta labadaba iyo sidoo kale ciidamada la galaasfuraya deegaanka. arrintaasi ma aysan dhicin waxaa marka soo baxday in maamulkii Hargeysa heleen kalsooni fara badan oo maamulkii Khaatumo madaxdiisii green light u shiday tilmaamaya in ay fuliyaan howl kastoo ay ka rabaan deegaanka. sidoo kalena dhowaan wasiirka aan idhaahdo safiirka Ingiriiska ama Britain ee Soomaaliya gabadh haweeneyda safiirka ahayd Hargeysa maray tagtay oo waraysi uu la yeeshay telefishinkan Home Cable TV su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa sidee u aragtaa wadahadalka Khaatumo iyo Somaliland. safiiradu waxay tiri waan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol laakiin wadahadalkaasi yuusan noqonin mid noqda jaranjar loogu baxo doorashada oo hadhowto isbedel sameeya waa in laga sal gaaraa cabashooyinka dadka dhulkaa degan. haddaan nahay Britain waan soo dhaweynaynaa laakiin waa in deeply hoos loogu daadigo cabashooyinka iyo waxa ay tabarayaan iyo waxa ay sheeganayaan iyo waxa ay tilmaamayaan iyo waxa ay ka dagaalamayaan intaba dadka dhulkaa degan. Mr. Guutaale waxaa marka muuqata in maamulkii Khaatumo aanu kasha iyo laabta u dhisnay ee kan iyo laab u taageernay ee kan iyo laab u soo dhaweynay ee kan iyo laab u jeclay oo madaxweynaha Cali Khaliif Garayd nooga ahaa baarlamankii iyo wasaaradii dhammaantoodba waxaa ii muuqatay inay green light u shideen maamulka Somaliland sababta oo ah waxaa la joojiyey dhaqdhaqaaqii ciidan ee maamulka Khaatumo ay ka wadeen deegaanada. waxaa marka soo batay dhaqdhaqaaqii ciidan ee Somaliland dhaqdhaqaaqii
Mr. Gutale adiga ku haysta waynu u soo noqon doonaa runaantii markii lagu dhawaaqay Khaatumo 1 magaalada London runtii kooxdii la oran jiray G6 oo markaa 6 nin ka koobnayd hawsha markii halka ay ka bilaabmatay cali khaliif galeyd waxa la tuhunsanaa mar walba inuu aaminsan yahay inuu shacabka beelweynta reer Khaatumo inuu u jahayn doono xagga Somaliland dareenkaasi marna maskaxdaada ma ku soo dhacay hadda se ma ku muuqda hadda Khaatumo oo lagu qabtay waxay lagu manjaxaabinayay hogaankii mideynta iyo Faransa ee dadkii aanu ku dhisnay Kenya ku bixinay jawdiga iyo dhaqaalaha faraha badan waqtiga badan aanu ku bixinay iyagu wuxuu ahaa haddaan waran jaaniyadii reer Khaatumo ee aasay ama reer SSC ee aasay hogaankii SSC ee xadina toosiye ka noqday hogaamiyaha sabaray ka noqday ku-xigeenka ee jabhadda aanu ugu magac darnay xaraynta iyo mideynta ee shirka London ka dhacay wuxuu ahaa mid lagu burburinayay oo laga soo horjeeday in barnaamijkaasi socdo dhulbaanta dhulkiisa xoraysto maalintaas ayaa waxaa bilowday barnaamij hanqaltaag ah Somaliland jaranjartii lagu fuuli lahaa ama lagu tegi lahaa annaga haddaan aan ahayn reer Nairobi nalama cabsugin oo shirkeena kama cabsugin maalintay 2 maalmood shirka ka arsanay baa warqado nala soo diray cabsumada warqadahaasina ma ayna suuro gelin inaan ka soo gaarno shirka taasi waxay ahayd manjaxaadin lagu sameeyey dadkii aasaasay SSC xagga toosiyada geed baa lagu xiray halkaas ayaa waxaa ka bilowday hanqaltaaga iyo guriga siyaasadeed ee loogu jeedo Hargeysa ee lagu naafaynayo shacabka dhulka degan ee lagu horinayo dignitigooda iyo sharaftoodana wax lagu yeelay marka shirkaasi wuxuu ahaa shirkii ugu horreeyey ee jidka ka leexday ee weliba siyaasiyiintii G6 G9 iyo wax la mida oo aanu markaa islahayn siyaasiyiintii dhulbaantay ka sii jeestay arrimaha dhulbahantay iyo arrimaha deegaanada maanta way u soo jeesteen waxay noqdeen hore biicigeeya dad shacab oo aan waxba galabsan oo cadaadis iyo dhibaato lagu hayo dhulkoodina la haysto dadkoodna maaragtay IDPs ay ku jiraan dadkoodna ay xariyaha qaxootiga maaragtay Kenya soo galeen marka shirka London farbaa ku fiican annaga haddaan nahay reer Khaatumo qaybta weliba jaamiyadii Nairobi farbaa lagu fiiqnay shirka waxa ka soo socda waayahay intaan markaan intaa kaga gudubno markii taleex la isugu tagay arrinta ugu cajiibka badneed ee ka dhacday ee aan Soomaaliya gebi ahaan ka dhicin even qaaradda Afrika aan ka dhicin baa waxa ahayd in reer shirgeed hoosti ku qabsaday in 3 madaxweyne loo sameeyo arrintaasi lafteedu sidee kula muuqanaysa maalinta waan ku soo sheegay kiiman lagu qabtay waxa ula ceelqubay buu ahaa kii taleex lagu qabtay jaawareerin buu ahaa sababtoo ah sheekada laguma maqlin shaahidda laguma arag 3 madaxweyne oo aan lahayn baarlamaan oo aan lahayn constitution wax suuragala qof caqliga oo caqliga saaxiiba oo wax kala garanaya wuxuu qaadan kara ma ay ahayd marin habaalin cad bay ahayd oo looga leexday wadadii saxda ahayd taasina waxay ahayd arrin muuqata oo qofkii wax garanaya u muuqata oo qofkii aqoon uu garan karo kii markaa ay ka yarbaxsaneedno dib uu ka xasuusan karo meesha wax ka qawoocday Mr. Gutale markii arrintaasi dhacday raggii loo doortay madaxweynayaasha qaar baa markiiba oodaha jabsaday oo iyagoo bilaabareega u galay Puntland runaantii aflagaado iyo canjarafeyn iyo balaayo dhan baa laga daba tuurayay kuwa hadda u soo dhawaaleynaya inay Somaliland u galaan waxaad moodaa inay jiraan shacab badan oo ammaanaya arrintaasi ma ku muuqataa way muuqataa waa shacabku aan ilaado 3 nin laga dhigay 3 nin laga kala lagu aasaasay markii dambe caynay canjarafeynta dadka deegaanka ula tagay garoway ee weliba soo aflagaan
أي صدق على أدقى أنا وحنا قبل إنه يقرأ الموضوع يوسف للموتى لما نمشي على يوسف كعم بنعرف وروح السياسة الجيم العياري جيم بالعياري بس كده إلى حتى الجيم العياري واصل لكن أنت وصل على hadda waxaad moodaa dad badan inay ku soo baraarugeen durbaanka muddada dheer lasoo tumayey inuu ahaa mid la doonayo in steerinkiisa loo leexiyo dhinaca somalilan hadda weli waxaa jira dad kule wadahadalka waanu ka warsugaynaa oo laakiin aan aaminsaneyn in gebi ahaanba in dhanka somalilan loo wareejiy marka arrintaasi ma ku muuqata waxaan ka mid ahaa dadkii waxaan umaleynaya in maradaba wada hadalay وأنا أقول هذه كاسو ورجيت إسماعيل عن وعن قوة الآن كمامي وعن قوة عن كل سكوت فوتوا الوحدان دوري يعني ما ممكن خاطبه وما ممكن كلية وما ممكن كلية مثل وما ممكن كلية إن نحن صدق الحق على قيد ذكر وعن قصة البقوبة إلي وعن يعني عن قصة إلي وعن أفكر يدو بتاعي وعن سجنه وحصل بحقي وضعنا الكاتميشو على حقيقته لكن محال وقتي لما نقول سوى ذلك waayahay taa waa garanay run ahaantii hadda waxaad moodaa in shacabka reer khaatumo uu jahwareer siyaasadeed oo ba'an uu soo food saaray waana la garan karaa sababta ugu weyne keentay oo ah hoggaankii oo u leexiyey majarihii reerka meel aanay ku niyad samayn haddaba dad badan oo jira waxay taageersan yihiin hoggaanka ayay sidaa ku taageersan kuwa maxaad ku odhan lahayd dadka hoggaanka qaabka ku taageersan qaabka khaldan iyo wadada khaldan dadka ku taageersan iyaga way la ahaatay oo sidaas la noqotay qaladna anigu ma saarayo waa jacayl ay u qabaan maamulkooda iyo madaxdooda laakiin waxaan leeyahay طريقتي أنا مودي صنعي كنت أجي صنعي كنت علي كنت ربني وحن مضطرين وكل حلوات وطبعا وكل حبي بديت وكبر لي ممكن والله هيستو ممكن والله بحياة على بسيط ما طلع بحيو شعبتي والله هيو ممكن يوم كل عارضي اللي يدي وانجلت كوكرة فقلت له كبر لي الله تعالى ما تجي عروتي وكتير ولا خطب على لدي وانجلت كوكرة وهذا البانو قلنا نربى وكشقيرنا وحنا كحدا الكلام معها كان معلومة روح هو اللي مكيدي البدل يقول كذا وحنا مرينا يرتمش طريقة ولا نحمرنا يا هو اللي فات waxaa jirta in hadda loo ballansan yahay sida wararku ay nagu soo gaarayaan in loo wada hadli doono khaatumo iyo somalilan dad badani waxay iska dhaadhiciyeen ama la soo gaarsiiyey in beesha caalamku ay kasoo qayb geli doonto in shirkaasi noqon doono mid debadaha ka dhaca dad kale waxay aaminsan yihiin shirka uu siilaayo yidhi wuxuu ka dhacayaa burco inay kasoo qayb galayaan hoggaanka khaatumo cali khaliif uu hogaaminayo marka arrimaha maxaad kala socotaa aniga waxaa ii bidaano ii muuqda inuusan jirin shir beel caalam kasoo qayb geliso sababtoo ah beel caalam laguma xashiyo meeluu ka dhacayo oo rasmigana cidima sheegi waxa kale oo muuqaal weyn muujiyey oo greenland jiray isimadii beelaha ay saaqeeyeen saaxdeen ee galaa jaamac garaad cali kulanka iyo shirka la galay hadalladoodii aan dhegaystay wixii la isweydaarsaday wixii lagu heshiiyey nabadgelyo ayaanu ka wada hadalo inaan ka shaqayn oo dadkaygiyo dadkaygu maba naga qabaan saaxibeed duleedkeeda iyo horkeeda taageerin maleeshiyeedii beeshaytaa dadkinkoodu mayuu saaxibeed oo guri ku yaallo fadhiga garaa jaamacan ka yaro nabadgelyaanu ka shaqaynaynaa oo isugu nimid wax maskaxda galaa maaha maatagiibaa ka weerayso ka imanaysa laascaanood dhexdeeda gurigooda dhexdiisana ka weeraya waxay ka weerayaanna waa isimada dadkoodii weerar u talinayeen wax maskaxda galaa wax caqliga garan maaha wax suuragalana maaha shirkaa buuxo anigu ee la sheegayo ee laleeyahay shirkaa silaayo ku baaqay ka hor dhixi maayo laakiin haddaba waxaan sii sheegaya inuusan jirin shir dibad laga iclaamiyey iyo shir dal caalam
مدن دولك انت كروان هاي سماي دولك انت كروان هاي سماي تقبل بها الله فانا بتصور شيء ما معناه مدن كوتال مدن كوتال waxaan ku weydiinayaa waxaan hore u ogeyn inuu garad jaamac garad cali xaafidullah uu yiri ninna anigu gunnimo kula tartami maayo maantana waxaa muuqata inuu yiri waa la isu soo hiloobay waa la isu soo boholyoobay xidid iyo xigaal baa la yahay maxaad malaynaysaa waxa mar kaliya ay bedelay garad jaamac garad cali muxuu noqon karaa garad waa nin adag oo dhalinyaro ah oo waan jecelahay anigu isimada deegaanadana waa ninkaan ugu jecelahay oo hadal cad buu leeyahay garaadka hadalkiisa waxaa ka muuqata waa la khasbay khasab baa ku socda garaadka waa toojargaraysan yahay garaad jaamac cadaadis baa ku socda garaad jaamac cadaadiska wuxuu kaga socdaa siyaasiyiinta ayuu kaga socdaa garaad jaamac godoon buu ku jiraa oo dhinaciisibada godoon buu kaga jiraa garaad jaamac godoon buu ku jiraa oo dhinacii shacabkiisa godoon buu kaga jiraa soomali faraag iyo cayn garaad jaamac godoon buu ku jiraa oo meesha wada saaxdeen baa lagu hareeraysay saaxdeen baa lagu hareeraysay garaad jaamac godoon buu ku jira oo markiisii baa la haysata waa ruu yiri gudnimo anigu nina kula tartami maayo laakiin waxa jira oo ii muuqata hadalkiisana iiga dhadhamaysay hadalkiisa ninkii dhegaystay waa dhegaystay waa toojargaraysanay garaadku waa khasbay waxaan afkiisa soo marin baana la yidhi mari oo dhiclay taana insha allahu tacala waxaan aaminsanahay inuu markun arrintaa ola doono khalad bay hayd waana ka laabtacno sababta oo ah shacabka sool sanaag iyo cayn siyaasi waxgarad aqoonyahan ganacsade haween dhalinyaro ayaa laga rabaa inay arrintan kacdoon ka sameeyaan anigu ismaaciil oo dooni mayo inaan idhaahdo maamulkii khaatay madaxdiisii waa dhulka gashay oo maxay ahayd furcad tagtay maago inaan idhaahdo laakiin waxaan leeyahay waa khaatuma tegi maysay shaksiyaad baa tegayo hargeysa aadaya khaatuma way joogaysahay khaatuma ma maamulayo hogaan cusub maamul cusub cudud cusub dhaqaalay nooga baahan tahay ciidan bay nooga baahan tahay wax badan bay nooga siyaasad bay nooga baahan tahay adeerkiisu laguma riyaano lama qaado nin khaatuma meeshoodii ku haraysaa ninkii tegaya ninkii ku haraya anigu khaatumaan ahaanayaano wuu ahaanayaa dadkuna reer khaatumay ahaanayaan taasaana lagu dhimanayaa dadka dibadaha ka soo qaylinay ama meelaha kale ka soo qaylinaya hebel baa halkaa aadi warhaad burhaane waxaad hayso keen banaanka maaha inaad un habashid waxaa tiraa muxuu leelkaa u aadi waxaa la rabaa ficil waxaa la rabaa hadal dhab ah waxaa la rabaa toogaado dhab ah waxaa la rabaa muuqaal dhab ah waxaa la rabaa waxqabad dhab ah baa raba dooni maynu hadal un afka baarkiisa inaynu nidhaahno hebel baa halkaa maraya muxuu maray waan ogaa kuwa fara badan oo weligood khaatimo taageerin oo aan shilin ku bixin oo mucaarad ku ahaa oo dadiyaalka loo haweenaya maalintii wada hadal baa dhex maray siduu khaatimo uga tegi karaa khaatimo dadkaale shab waxa weeye hadalada noocaas oo kale looga baahna adeer haddii aynu waxayno anigaa iska bilaabaya haddaynu waxayno aad buraane miiskaan keenno burcad tagaan iyo hadday hargeysa tagaan bakhaatuma meeshooday joogaysaa oo ay ahaanaysaa waayo mudane guutaale waad ku mahadsan tahay run ahaantii jawaabta aad ka bixisay laba qodob bay isla soo qaadeen garaad jaamac salaadiintii saaxdheer ugu tagtay qodob wuxuu ahaa kaa nabadgelyada midna wuxuu ahaa waxaa loo ballamay imaaraadka carabta marka imaaraadka carabta maxaa laga doonayaa maxaa lays odhanayaa maxaa laga wada hadlayaa maxaa lagu heshiinayaa maxaa dadkan loo soo bandhigayaa maxaa la rabaa in ummadan khaatumo laga iibiyo iyo beesha caalamka iyo soomaaliinteeda kale oo dhan ninbaa heese wuxuu yidhi meelaan hogarba lagu haynin maxaa sacab laga hawlayaa warbuuhoodla keliya ayaa fayow oo gacanteeda ku jirta waa degmada buuhoodla haddamaha gobolka cayn waa degmada buuhoodla hoostagan hubfadhi iyo
بنيالي مرة متحشو استغرا الله انت سأفيو انت أنا مياه بالعجينية أول عملكم أما أكبر عميشنا الإمارات أما أكبر عميشنا النيروب أما أكبر عولندا وحكاها الرئية انت رجلين تقولك اللي قد يعيد مدنا اللي قد صار كيف إنه هذا الكثير صراحة الله ولا خبير أدين له إبراعي كرام ويقول الشيء أنا أهلا أدين له الشيء وأنا سوى اللي ولا هذا واي وصحوي هذا ومدن صوب حي كان شرر كان جراد جامع جراد علي يهوجان كخاتمه وعلى خليفور كعيو لبداس نين أبايلا هذا كده موقنية سياسة خاتم استيد الصومالي dadkii kala aaway ismadii kala aaway siyaasiyiintii xildhibaanadii kala aaway iyagu ma waxay ku raacsan yihiin mowqifka labadan hogaamiye miyay ku raacsan yihiin mise way ka soo horjeedaan sidee bay adiga kula muuqataa kubada kale badan badan bay ahayd oo ma socota garasarada uu gareeraa uu yiraahdo guddaan baa dadka kale waa niman badan درجات صناعية الواقع تبغى لا تعرف شو وكاسمنا هم شيء سوى تقول شيء سوى أوتوي نكال إذا وكانت جامعة كلام حني بفنان كتشوفي أنت كريا تروني نكتاهل يتروني هاي وقعت هواي من بولا سلك كل شيء كي كريا هو آخر بكسو هرينا يسمونه في الطائرة أي نارك لا وضع بك إنما قولي يسوي من الوارد وحي كمال هدلنا وامق الله هو دقيسي وفكين ونوفي قصة ورubaya وكرا الله يستوي بك قيد تكرين يسنيك إبناك تشوف ومركع الصغار ينقول الحرام إيوه بقول خيران لقوا ردوا روادي صوت فجر قريني فاسع بذلك كماتي حتى مخايلها وأحكامنا لكما يلاهو أنا لا أدوكي نعيسمو إذن عيسمو ما يحكي إنسان والسياسي كأدوية إيو تنويرها كأدوية إيو أقوليها كأدوية وراقوة وذيك المركز يسكعري سوء وأدوك على كسارته وأدبنانك دكتو وأدبكد عسو يا كان بايك الدائنة ولا هرشان أنا بكو ولا هرشان لكن من ممكن أيضا وممكن يبدأ كاجي دبي وما تبعي دبي وهذا الكذا أوبراني ميرا دير أي كتار ومكرمي مثلا يروح عن مكان كسر كاي بس عن كم مامون يا أنا ما كم ماموس مثلا إن هذا الطبيعي من الطبيعة صحيح بس الله عليك يعني دي جنبك بس أنا يمين كيساني إلى ما المكرمون مراديش وحالي جميل مخطط ممكن من أنا هذا الكوك مجريني ممكن يبقى حقه من الدكتور يبقى يجي بس على السكر حاجة دولة تأدي وحكة اللي المبتي بوسطة يعني عيب كديدي سياسي عمل كأنه يفكروا كأنه يقدمت كأنه يكأنه يقدمون انت اللي بنروح عنه معي حالة يوقع في تاجرته وصحوي مدن قوتالة waxaan u yeer jalaacayna dhanka Puntland baryahan dambe dardar cusub iyo olole aan looga baran ayay ka wadaan gobolka Cayn gaar ahaan caasimadiisa Bohole maleeshiyaad bay qoranayaan dhaqaale ayaa la leeyahay bay ku soo daldalayaan waxa soo hawl iyo waxa soo qarash iyo waxa soo ay galayaan inta imika la soo ordayaan miyaan ka habboonayn marka hore inay wax ka qabtaan hadiiba ay wax ka qaban karayaan maxaad soo malaynaysaa hadda ku kaliftay inay yiraahdaan anna haddaan kooya meesha waxa weeye dadka in sabab baa malaynaya siyaasadda Puntland ee dhulka kan xaalaya soo sanaagi yahay waa in yar oo ay Puntland ka dhaasato iyo maxal ay qaadada midowday iyo beesha caalamka ku cunaan waa Puntland lacagna way ku qaataan وأنا هالجيسنا في شغل كله بس هو أول برنامج كي هدي خاطبه أي كلا وحنا آذينا سؤال ما وغضينا بأش الشيء الذي أي بيئة مع كذا سنة يبدنا هو كويسة
marka iyagu laftooda waa inay cardaada qayb ka noqdaan oo dadka galaan iyaguna waxa weeye ku qabsi ku kadib isbuuye macnaheeda iyagu waayahay waxaan soo gaarnay gunaanadkii baan kusoo dhownahay haddiiba la wada hadlo oo de soomaalida waxay tiraan wada hadalna waa aan heshin haddiiba khaatumo iyo somaliland ay yidhaahdeen aynu wada hadalno maxaa ku jabnaanaya haddii la heshiiyo sidee bayse kula muuqanaysaa haddii la heshiiyo oo wax badan oo laga wada hadli karaa way jiraan oo masaalixaada marka laga reebo somaliland oo aaminsan goosashada iyo khaatimo oo aaminsan midnimada soomaaliya marka maxaad u malaynaysaa inay faa'iido usoo kordhinayso shacabka wada degan gobollada waqooyiga soomaaliya horta dagaalada soomaaliya sanaag degan waa dad aaminsan iyo midnimada buuxda waa dad aaminsan midnimada soomaaliya dadka intaa ka sarraysa ee waqooyi galbeed deganina waa dad aaminsan inay goonihu gureen oo ku riyooday inay dib ula soo laabteen 18 maxaa la yidhaahdaa may 1919 inay dib xorriyadooda ula soo laabteen oo ay gureen bay aaminsan kuwan danta xaggan deganina waxay aaminsan tahay inay yihiin dad soomaali weyn oo midnimada soomaali weyn ay tahay mid yani gorgortan aanay geli karin marka waxa weeye sida la isula keenayo waa adag wax faa'iida wada hadalkaas haddii la heshiiyo maxaa lagu heshiiya wada hadal oo aan heshiin waxbaa ka horeeya wada hadal aan heshiin waxaa soomaalidu tidhaahdaa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameerka wada lama gaaro soomaaliya waxaa halkaa dhigay oo baabi'iyey ay 25 sano u maraysa dowlad la-aanta waxa weeye mudul oogadiisaa la duugaya dib u heshiisiin ama reconciliation rasmiya marnaba lala qabo haddii dib u heshiisiin rasmiya la qabanayo dadka ka waqooyiga beelaha ka waqooyiga degan waa inay asalan ka tanaasusho calankan ay wataan waalidan iyo guritaankan dastuurkan ay samaysteen walaadgaraacan ay samaynayaan waa inay ka tanaasulaan way isugu yimaado meel ka xawa bannaan wax raali laga yahay in la wada yeeshana lagu dhawaaqo adigu waa soo dhaweynaya laakiin suuragal ka noqon mayso dhinaca xaggiisa dadka kalena midnimay raadinayaan midnimo aan meeshana oo aanay hiil ku helaynin horaan lagu dhamaa dadkana horay ku baabi'een 21 sannadood bay la dagaalamayeen gumaysi talyaani xabashi ingiriis soomaali kale cadoon kale daraha la socota 21 sana lagu baabi'iyey dadkana lagu distaa oo xulubtooda lagu jirtay lagu baabi'iyey weliba midnimay ku degan yihiin haddana waa lagu laaya maalooda midnimaa lagu dila wada hadalkaa aad hadda sheegtay aad leedahay haddii la wada hadlo waan heshiino wax badan iguma jirto haddii aana korea somaliland ka tanaasuleyno waxa la yidhahda goonistaag waayahay mudane guutaale hadda waxaan soo gaarnay gunaanadkii barnaamijka maxaad jeclaan lahayd inaad gaadhsiiso hoggaanka sare ee khaatumo state of somalia ee isagu u heelan inuu wada hadal la galo somaliland maxaad kaloo usoo jeedin lahayd isimada dhaqanka ee iyagu aragtida siyaasiga ku kala duwan qaar hoosta ka taageersan puntland iyo qaar iyagu khaatumo taageersan isugu jira maxaadse odhan lahayd shacabka reer khaatumo ee xalaasha ah ee muddada dheer loogu soo durbaantumayay ee maamul baynu samaysanaynaa laguhiisa isku taagaya balse maanta majarihiisi la leexiyay intaasoo dhan maxaad gaadhsiin lahayd fariina maamulka madaxda maamulka khaatumo ee wada hadalka u hadlaataagay u socda waxaan leeyahay wadahooy talada waa la wadaagaa ummadayna ka dhaxaysa ifin iyo haween dhalinyaro aqoon-yahan turbajoog gudajoog dhammaan culimo iyo caamo way ka dhaxaysa taladu waa inaga dhaxaysaa talada dhulka dhiga talada waa inaga dhaxaysaa ee talada dhulka dhiga khaatumo in yaroo koobanima samaysana dhulbahantaa samaystay waxayna u samaysteen darahooda inay u matasho ay ka dukito waxaan adigu leeyahay arrintaa waa hadalka aad sheegteen halloo kala badfuro yaana lagu degdeg waa in loo kala badsado
lagu degdegin haddii la gelayo wada hadalkaas aan gudaha dalka lagu gelin haddii dowladda lagu gelayo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay wada hadalkaa ka qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshadu wada hadalkaa ka qayb galaan oo aanay noqonin wada hadal ku dhaba taalasho shaksiyaad gaara oo la soo xushay oo yeesmaani inay meeshaa tagaan ururada haweenka ururada dhalinyarada dadbajoogta culimaadudiinka dhaqanka saasaan leehay labo ismada deegaanka soo saraag yahay iyaga ayaa u sababa kala qaybsanaanta shacabka dhibaatada qasfiga kala fogaanshaha isnacaybka isdilka iyaga ayaa u sababa sababtoo waxay ka gudbeen xadkii dhaqan ee loo doortay waxay noqdeen siyaasiyiin saraakiil bay noqdeen halkaasay marayaan waxaan anigu oran lahaa iyaga kula talin lahaa kusoo noqda geedkii orta idinku iska bilaabo shaksiyadiinu heshiiye markaad idinku heshiisaan ayaa shacbigu heshiinaya idinkaana shacbiga isu keeni kara oo heshiisin kara gacmaha isu gelin kara baajin kara dilka iyo kala qaybsanaanta difaaci kara ilaalin kara xorriyadooda idinka oo kaashanaya siyaasiyiinta nadiifta dhalinyarada ururada haweenka culimaadudiinka taasna taasaan leehay dadka shacabka ah ee reer khaatumana waxaan leeyahay waan ku gebagabeynaya haddii aynu diyaar u nahay difaaca iyo xoraynta dhulkeena yaynaan hadal gelinina aynu fadli ka kacno oo difaacno xorayno dhulkeena ka saaro nimanka u tashanno intaasaan hadalkii ku gebagabeynaya waxaan intaasi kusoo abjaraynaa barnaamijkeeni gaarka ahaa kaasi oo inoo noqon doona mid taxana ama joogto ah waxaanan uga mahad celinayaa halyeyga reer khaatumo ee aan toddobaadkan ku wareysanaynay sidaasi iyo kulanti dambe iyo ismaqal dambe oo xiise leh